rag hubaysan ayaa waxa ay saaka aruuryadii hore weerar ku ekeeyeen saldhigga weyn ee magaalada Boorama halkaas oo ay muddo isku rasaasaynayeen ciidamadii ku sugnaa saldhigga muddo kadib ciidamadii ku sugnaa saldhigga ayay u suura gashay inay iska cabiyaan raggii soo weeraray oo goobtaasi isaga baxsaday haatan waxa la sheegayaa inay ku sugan yihiin banaanka magaalada hase yeeshee madaxda Soomaaliland waxay sheegayaan in dhinaca iyo Itoobiya ay galeen haddaba umurahaasi ayaa waxnu ka wareysanay Suldaan Abibakar Cilmi Suldaan Wabar oo sheegtay in weerarkaasi uu hogaaminay khadka taleefanka ayuu ugu waramay weerarkan saaka soo qaaday aniga iyo inta taageersanay wuxuu ahaa mid laga maarmi waayey oo dibdare muddo dheer ba soconaysay oo cadaalad darre iyo cagajugleyn lagu hayay shacabkayada aan kaga jawaabay xageed ka soo qaaday marka gudaha magaalada Boorama ka qaadnay haddana xagee joogtaa waa ku dhawahay yay ku hayaan marka cagajugleynta aad sheegaysid shacabka degan gobolada awdal iyo degmada Gabiley cagajugleynta ayaa idinku haya waxa ku haya maamulka SNM ee ka taliya magaalada Hargeysa adiga yaa afhayeen kaaga dhigay shacabka marka waxa iga dhigay qofkii goofyada la saaray oo aan haystay dadka ugu taageerada badan hadda Soomaaliyeed marka la calaamad saaray taasoo ku jirtay maxaa khasaaro soo gaaray ciidankaaga ciidankiiga khasaaro ma soo gaarin haba yaraatee oo ciidan dagaalyahana weligeedna waan xataa kula dirayna khasaaro intaan galin wax khasaaro haba yaraatee ma soo gaarin ma jiro laakiin in aad magaalada bartamaheeda weerar ku qaadid oo rayidkii aad lahayd haatan waan u doodayaa aad xabad ka dul ridid taa maamul iyo wanaagba iyo hoggaan dhaqanba weliyo marka hadduu guriga kuu galo dhaqankeeni ubooyinka markuu galo ubasuga soo maran waa la isku jejebin jiray haddii ka maarmi weydaha marka bulshada iyo dadka halkaa degan dan kama lihid may sababta loo galayaaba dantoodiia waa in naftii laga dhex saaro ujeedka u dagaalamaysid muxuu yahay marka ujeedka loo dagaalamaya waxa weeyaan in cadowga baabi'inaya dantooda iyo fuujalkooda laga dhex saaro intii aad weerar soo qaadi lahayd cabashada aad qabtid maxaad iyaga ula wadaagi weysay waa ka soo daalay inaan si nabadeed cabashada ku dhamaysano ku raadino waana ku weynay aniga maahayn ilaa haddeertadani kuwo igamid ah oo iga hadhay oo gudaha jooga ayaa maalin walba baryootamayay oo saami la siiya lahaayo cagkaygeeda siiya lahaayo loo diiday marka taana maana dhaafin horaad u heshiiseen xukuumadda Soomaaliland maxaa haatan dib u soo celiyey inaad qorigii dib u qaadatid may waa alle waan heshiinina ma jiro dadka xaaladaha adkaadeen dagaaladuna adkaadeen inaan anigu garaad daamo oo xoogaa aan hoos u dhigo maaragtay nabadda buurfugaan wax la yidhaahdo oo dhaqanka Soomaalida ku jeegay ayay haydo xoogaa ka bareeriyo odayaal qaateen anigu ma qaadanin markaa tiinaga fayro noqotay laakiin waxaad leedahay garaad baan ahay Soomaalida dhaqankeedana kuma jiro garaad weerar soo qaado oo ciidan hogaamiyo marka labada arrin sidee isu raacayaan annaga dhaqankayga waa ku jira haddaanu nahay wasiga la yidhaahdo weligeedaa ku jiri jiray ogaasyadaa hadi jiray hogaamin jiray kolka nabadoonka la yahay dagaalka la qaadayana micnihiisu waa in nabadda lagu ilaaliyo weeyaan marka nabad la waayo weerar iyo qulqulatooyin wixii lagu waayo waa hadal inaan lagu helayn bay dad badan aaminsan yihiin marka xal miyaasaa lagu gaari karaa oday adeerkay ahaayoo gabyi jiray baa wuxuu yidhi 10 sano ninkaan wada jiray in eegay taladiisa tunka hadduu jannadii igu soo taa aqbali maayo waa soo kala daalay si walba soo kala daalay rag waa iskalanayna waa tan ciidamadaadii lagu daray ciidamada Soomaaliland haatan ciidamadan xagee ka keentay waxaan horta anigu marna ku jira ma ahayn odayaasha beesha ayaa ka shaqaynayay anna ciidanka iga xoogay anna kolka wuu daayay bal sidii ay rabaanba in la yeelo laakiin sadde wixii markaa lagula ballamay iyaga laftoodii baa dib loo waayey maxaa kuwii baa raatiyaan gaaray oo laga been sheegay qoladani beeshaas ee nimanka la yidhaahdo SNM idin axdi yaqaano maaha marka waxa weeyaan ciidamada dambe waxay ka yimaadeen kacdoon bulsho oo cusub oo hadda jadiida oo ilaa sayra iyo luqyo la isku haysto ilaa Gabiley la isku haysto ilaa dowladda Boorama la isku haysto oo daana nimankii dadkii waxbaba uga tanaasuleynin odayaashii reerka Sooma joogaan oo haddana berri ciidamada aad haatan urursatay ka qaadan maayaan way joogaana waa inay gula jiraan imir waliha soo xadgudbay SNMta inaan dhulkooda tagnana ma rabno inaan baabi'inana ma rabno shacabku waa shacab Soomaaliyeed wada shacab Soomaaliyeed nahay waxaan rabnaa inaan iska celido oo halkoodii ka celido laakiin SNM baad leedahay wax SNM oo aan ognahayna ma jiraan waxaan ognahay inay jirto xukuumadda Soomaaliland marka SNM xageed ka keentay adiga maamulka ka dhisan Hargeysa muddada dheer dhisnaa shacabka iyaga wada xukumayay nabaadiidii SNM oo saxa ayuu ku maamulayay meeshaas kolkii la heshiiyey isagoo kula gaar ah markii hore waxyaabo badan lagu heshiiyeyna waxa la wixii sharci ahaa ee lagu heshiiyey maalin buu doonu ka baxayay marka SNM si iska taagan oo xilliga dagaalamaysay nabaadiidii waa meesha ka shaqaysa xalka maxaad u aragtaa inuu ku jiro xalku wuxuu ku jiraa nimanka la yidhaahdo SNM oo gar qaata
oo baryada muddada dheer la baryayay gorgorta way ka tagtay beesha iyadu baryaysay muddada dheer oo cadkoodii la sii ay lahayd cadka ka maqanina uu ahaa annaka oo xisaabsanayna 30% inaan ka nahay dadka degan waqooyiga Soomaaliya xuquuqda aan ka haysanina ay 5% tahay inay helaan ay muddo dheer dowladtamayeen halna laguma darin xuquuqdii taa weeyaan waxa meesha lagu dagaalamay suldaan abubakar cilmi suldaan wabar oo sheegay in weerarkaasi uu hogaaminayo oo khadka taleefanka igu warramaya dhanka kale waxaan isku daynay inaan la xiriirno dhinaca Somaliland wayse inoo suurageli weysay hase yeeshee taliye ku-xigeenka booliska Somaliland Faarax Maxamed Mire ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta maxalliga waxaanu yiri saaka waa berigii waqtigii salaada koox yar oo qaswadayaala ayaa rasaas ku soo riday saldhigga dhexe ee Boorame ciidamada biliiska ayaa si geesnimo uga hortagay nimankiina eryaday ilaa xuduudda Itoobiya ay galeenna eryanayay haddana gobolkii waa nabad weeye wax dhibaatii kama jirto nimankiina xadka Itoobiya ka gudbeen qaarna waa laga qabtay wixii wareer dheeraadana dib ka soo sheegi doonaa xaaladuna way degan tahay gobolkuna waa nabad wax khasaare oo ka dhacay oo ciidanka soo gaadhay ma jiraan waxaana